Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta qaaliga ah YouTube-kayga ku soo dhawaada mar kale iyo video cusub ayaan ku kulmaynaa. Haddaad channel-ka cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto, fiidiyowgana ii like garayso, asxaabtaada aad la wadaagto waadna ku mahadsan tahay daawashada fiidiyoyaasheeda. Haddaba maanta sheeko cusub ayaan idiin wadaa intaana sheekadeena u gudagelina igula salli rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim calaa nabiyina Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Haddana sheekadeena hanoo bilaabato. Maanta sheekadeena waxay dhacday qisadani ay dhacday 1994 ayay dhacday. Waxayna ka dhacday wadanka Urdun, magaalada caasimadda ah ee Ammaan degmo la dhaho Rashiidiya ayay ka dhacday. Waxaa halkaas deganaa maamo la dhaho Sucaad Fariid. Maamo la dhaho ayaa deganayd. Waxay ahayd maamo kaligeed nool oo ninkeedana wuu dhintay, ilmana uma aysan joogin. Maadaama ay ahayd maamo kaligeed nool, maamadadeeda 40 jir meelahaas ay ahayd, maadaama ay ahayd qof kaligeed nool oo ilmana aysan u joogin, qof kaleetana uusan la noolayn, dadka xaafadda aad ayay u xiriirin jireen, way u tagi jireen, way booqan jireen, way ka warqabi jireen xaaladeeda iyo wixii ay u baahan tahay. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa dadka xaafadda waxay ku baraarugeen ur aad u qarmoon oo gurigeeda kasoo baxayso. Guriga dadka jidka maraya way isweydiiyeen maxaa waaye, albaabkay imaadeen way karkaraaceen, guriga way karkaraaceen, maybe mudda ugu dambeysay. Waxay dhaheen dadkii markay xaafadda isku imaadeen maalmahan maana arkin maamada maxaa la dhahaye albaabkeedana saan maysan ahaan jirin noocaan maxaa dhacay. Albaabkay karkaraaceen, dadka qaar waxay dhaheen aan jebino albaabka, dadka qaar waxay dhaheen haddaa jebina ka warrama hadday safar ku maqan tahay ama aysan wax maxaa la dhahaye albaabkiina aan ka jebino, marka waxaa fiican inaan albaabka jebin. Ugu dambeyn waxay isku raaceen dadkii xaafadda in ay wargeliyaan booliska. Waxay waceen ciidanka booliska markay wargeliyeen booliskay u sheegeen waxay dhaheen maamo noocaas oo halkan deganayd ayaa hadda ka shakisanahay albaabkan ma furayso, gurigeedana ur zaa'id ah kasoo baxayso, naga soo gaara. Booliskii ayaa imaaday. Markuu booliska xaafadda soo gaaray waxay sameeyeen albaabkay garaaceen, wax ka furaya malahan. Markay waayeen wax ka furaya waa ay jebiyeen albaabkii. Albaabkii markay askarta jebiyeen gudaha markay ugu tageen maasha waxay la kulmeen sadma, waxayna filaynin ayay meeshaas kula arkay. Waxaa loo tagay maamada oo dhulka taalo oo dhiiggeeda ku dabaalanayso, mindina sidii loogu wada jirkeeda dhan la mindiyeeyay ayaa la arkay. Waa la soo qaaday maamadii la soo qaaday qaybaha dambiga meydka baara ayaa loo diray. Kabacdina waxaa guriga laga raadiyay si dadkii dilay loo laakiin guriga waa nadiif, meel walba sideedii u ratiban tahay, fara waa laga waayay, wax haba yaraatee qofkii dilaaga ahaa lagu raad raaco waa laga waayay. Askartii ayagoo yaaban oo wax yar kadib baa haddana waxaa soo wactamay kool kaleeto, waxaana loo sheegay in maamo oo la dhaho Faaduma Jamiil la dhaho oo ayadana 40-meeyadaas ah meydkeedii ay dadka ay soo wargeliyeen booliska ayaa la dhahay meel beer ah ayay taalaa. Nin ayaa soo wargeliyay wuxuu yiri beerteyda dhexdeeda ayaan ku arkaa. Hadday tageen meeshii booliska sidoo kale ayadana way dilan tahay, way midiyeysan tahay, waana maamo ayadana 40 jir ah. Booliska way yaabeen labadan maamo oo labadan dumar ah oo la dilay, qofka dilay ma kufsaday ma hantiyu ka dhacay. Haddii la fiiriyana wax maamada gurigeeda lagama qaadan midaan hore, midaana sidoo kaleeto. Iyadoo tii lagu mashquulsan yahay baa haddana wax yar kadib maalin kadib waxaa magaalo kaleeto kasoo wactamay lambar kaleeto, waxaana lasoo wargeliyay booliska gabar yar oo markaas 20-kii kasii baxayso in ayadana meydkeeda oo asna la mindiyadeeyay oo isaga kulligiis haddana mindiye ah oo meel yaalo. Booliska markay u tageen sidoo kaleeto hadday baareen wax fara ah malahan sida kuwii horeeto kaleeto waaye. Qofka dilay wuxuu ahaa qof aan wax daliila ka tagin, maybe wuxuu ahaa ibsdeen booliska qof yaqaano basamaadka iyo waxyaabahaas ku xeel dheer wax daliila kamuusan tagin, gloves iyo waxyaabo noocaasa inuu watay ayaa laga yaabaa. Si kasta markay yeeleen booliskii maxaa la dhahaa ay baareen dadkii dhan oo wadanka deganaa way wada cabsadeen, gabdhahooda wada baqeen, maamooyinka waa loo wada cabsaday, qof walba wuxuu isdhahay xitaa ayagoo dadkii guriga wada jooga baa waxaa soo diristay cabsi aad u weyn ayaa dadkii oo dhan soo food saartay. Waxa la sameeyaa la garan waayo, booliska si walba hadday yeeleen qofkan waa ay soo qaban waayeen. 3daas qof markii uu dilay waa uu joojiyay dilkii oo dhan, wax kale malahan. Booliska wax kasta way baareen, waa ay waayeen, meel loo dhaqaajiyo ayaa la waayay. Dadkii iyo saxaafadiina aad ayay u buubuuninaysaa. Waxay leedahay qaatil mutasalsal ah ama nin dilaa joogta ah baa soo baxay oo dadka dilaya.
saxaafaddu aad ayay u buboonisay dadkii dhan way wada cabsadeen iyadoo walwalkaas lagu nool yahay 6 bilood ninkii wax dembiya oo kaleeto muusan samaynin booliska waxay isdhaheen talow muu joojiyey oo dilalkii uu sameynaya wixii oo dhan muu joojiyey mise waxaa jiro wax intaan ka weyn oo uu rabo qofkan inuu sameeyo oo waqti munaasiba uu la gaadayo 6 bilood markii ay kasoo wareegtay xilligii saddexdii dumar ahaa la dilay baa maalin maalmaha ka mid a lambar kaleeto oo baa soo wacay booliska wuxuuna qofku soo wargeliyey in maamo masriyad ah oo dariskooda ah iyo gabadheeda yar oo ay nuujinaysay meydkooda ay ka dhexeleen gurigooda kadib markii ay jabiyeen maybe eedana way ka shakiyeen oo way waayeen markii ay jabiyeen kadib maamadaas iyo gabadheeda inay gurigooda ka dhexeleen oo meyd ah booliskii meeshii uu tagay bardu way baareen wax fara ah iyo wax daliil ah midna waa ay ka waayeen boolisku yaaban oo dhahaya qofkan loolama macaamili karo sidii dilaa kaliya waa dilaa xariif ah oo yaqaana si wax walba layskaga nadiifiyo layskaga cirib tira yaqaano waayo isla maalintaas wax yar un kadib waa waxaa haddana booliska lasoo wacay nin kaleeto oo asna 70 sano jir ah oo asna saasoo kaleeto la dilay laakiin ninkaas wuxuu kaga duwnaa dumarka midiyaa lagu dilay asaga laakiin waa la qalay caadiyaa loo qalay dhegta ilaa dhegta ayaa la qalay waa la yaabay adiga walaac aad u fara badan booliskii meel wuxuu dhaqaajiyana la waayay ninkii dilkii oo dhan waa uu joojiyey wadankii sidoo kaleeto waxaa isqabsaday qaatilkaas mutasalsalka ah booliska way soo qaban layihiin eeda booliska qof kasta iyo guri walba oo dilkan uu ka dhacana askarta markay tagaan wax fara ah waa ay ka waayeen meelay u dhaqaajiyeen waa ay waayeen almuhiim ninkii waxba dil dambeeto iyo wax fal ah kaleeto maysan dhicinin dadkii xaaladda waxay kusoo noqotay si caadi ah dadkoodii noloshoodii sidooda u wateen 5 sano kadib baa maalin maalmaha ka mid a waxaa isna lasoo wacay booliska waxaana loo sheegay in nin 70 meelahaasi jiro magaalo kaleeto oo magaaladaas aan ahayn oo la dhaho xoojaan magaalo la dhaho baa waxaa loo soo wargeliyey booliska in nin caan ah oo magaciisa la dhaho cabdijaliil meydkiisa gurigiisa laga helay oo asna dhowr midiyood ay ku taalo booliska hadday meesha imaadeen sidoo kaleeto way baareen farihii iyo midna haddii la baaray wax waa laga waayay wax faraa waa la waayay qaab asagana sida kuwii kaleeto horeto ayuu noqday dadka dariska ay booliska wax weydiiyeen markaan way yaaban yihiin booliska xaaladooda mar labaad ay sii cakirantay oo dadkii haddana ku kaceen oo saxaafadda ay buubuuninaysaa dowladda marka iyadoo yaaban bay booliska waxay weydiiyeen dadka ayagoo dhahaya ninkan nin macruuf uu ahaa oo caan la wada yaqaano wuxuu dhahay ninkan ma aragteen qof uu imaanayo ama qof soo galay ayagoo xogtas raadinaya baa nin dariska kamid wuxuu dhahay maalin hore anuu meeshaan guriga hortiisa fadhiyo baa waxaan arkaya asaga cabdijaliil ah iyo nin iyo naag kaleeto isla socdaan oo guriga sii galaya markay guriga galeen wax yar ka bacdina waxaa maqluu dhahay inay istagaaleen micnaha sharqad qaylo oo ay codka kor u qaadayeen hadhowtida ninkaas naagta si caadi iskaga soo baxeen oo dhahay waxaan u maleynayaa inay iyagu ku lug lahaayeen fal dambiyeedkaas ninkii alla ee boolisku waxay sameeyeen way sawireen sawir gacmeed ay ka sawireen waxaa la dhahay bal ninkii la tusay saani ekaan dad wuxuu dhahay nidaam la labisan oo qurxan oo dad ay u muuqatay inay dad muxtaramiin yihiin ayay ahaayeen ninkii naagta la socda ninkaas soo booliska markay sawireen sawirada dadka tusiyeen dadkii laakiin qofka dad badan u ekaada sawirkii ilaan sawir la hubo ma wax si exactly loo sawir muusan noqonin booliska sidoo kale way iska yaabeen ayagoo hadee waa taqaanaa xaaladdu ay jiqis ku tahay baa maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in booliska hortiisa saldhigga booliska hortiisa ay boolisku dhulka ka qaadeen warqad dhulka ku tuuran warqadii markii ay fiiriyeen waxaa ku qoran warqadda waan ogahay in aniga iraadinaysiin laakiin lagama yaabo in ay heli doontiin ninka hadda ugu dambeeyay oo aan dilay cabdijaliilna waxaan u dilay qadiyad sharafa oo wuxuu isku dayayay xaaskayga inuu kufsado sidaas daraadeed aniga ima heli doontiin in ay hesheen aniga haygu daalin camal in aniga iraadisin camal saasa ku qorneed warqadda ninka dambi baaraha ah isagoo warqadii aqrinaayo warqadii saa u fiirinayo unbaa hal mar waxaa maskaxdiisa kusoo dhacday fikrad ah in uu meeshan fara ka raadiyo intaasoo fara ka helaa waa uu qaaday warqadii wuxuu u geeyey qolada baaraan ee faraha iyo baaraan u geeyey waa la baaray markii la baaray waxaaba kasoo baxaybo faro baa kasoo baxay maybe wuu ilaaway waxaa laga yaabaa ninka nin xariif u ahaa maalin kasta aad jimco maahano maalin kasta ma kuu suurtagelaysa inaa faa'iistid ama inaa guulaysatid soo fara maybe inuu si kasta inuu faraha si kasta ugu taabtay iyo inuu isan ogeyn istaabtay cidina ma oga soo farihiisa laga helay faraha waxaa kasoo baxay nin muwaadin ah u dhashay wadanka Urdun oo magaciisana loo Bilaal Muuse Maxamed
baa kasoo baxay farihiisii. Farihii markay kasoo baxeen ninkii Urdunka ah, ninkii oo muwaadin ah wadanka u dhashay, way bixeen waxay tageen gurigiisa. Waalidkiis markay weydiiyeen way u sheegeen in asaga uu yahay ninka dilaaga ah. Dadka way yaabeen, waxay dhaheen maya suurtagal maaha, wiilkeena wiil saas maaha, waa wiil miskiin ah, waa wiilkana ada. Almuhiim waxay dhaheen askarta, idinka maalmihii ugu dambeeyay midna wax isbedela kumidna arkin miyaa wiilkiina? Waxay dhaheen xoogaa wuu isbedelay oo markii gabadhan hadda uu qabo uu guursaday wiilkeena wax weyna ka qaldamay, waa uu isbedelay, laakiin si kastuu isku bedelay ma u malaynayno inuu yahay dilaaga nuucaana inuu asaga noqon doono. Askarta waxay dhaheen marka maalintii saas maalintii waxay u sheegeen Cabdijaliil uu dilay. Maalintaas midnaan ka dareemin miyaa wax isbedel ah, xaaladiisu see ahayd ma dareemi karto. Ilaa waxay dhaheen maalintaas waxay dhaheen wuxuu imaaday asoo jirkiisa dhaawacyo ku yaalaan oo dhiig leh, laakiin haddana markaan wax weydiinana si fiican ugumuusan jawaabin, qolkiisaas gurigiisu isku soo xiray dhaheen. Okay dhaheen booliska, haddana waxay dhaheen waaba dirnayba oo waxaan u dirnay dhaheen wadanka Masar si shaqo uu u raadsado oo xaaladiisa uu u maareeyo. Almuhiim way baxeen gurigii ay isla deganayeen asaga iyo xaaskiisa la tagay. Gurigiyaa la baaray. Guriga markii la baaray waxaa laga helay warqad ay ku qoran tahay waa baxe aan baxno, intaan kadib booliska inay soo raadiyaan laga yaabaa nala qabto, wadanka dhanba waa ka baxeena. Warqadii booliska soo qaadeen garoonka iyo waxaa la dhigay inaan ninka magacaas leh uusan garoonka ka dhoofi karin. Wadooyinka meel walba waa la dhigay, badda, biriga iyo cirkaba meelaha wadanka looga baxaba waxaa la dhigay inuusan ninkaasi bixin. So hadiiba la tagay wuu baxayba ninkaa mar hore, waxaana la ogaaday inuu u duulay wadanka Masar. Masar markuu tagay booliska Masar ay la hadleen. Masar ayagana sawiradoodii macluumaadkooda loo gudbiyey. Masar ayadana waxay sheegtay in ninkaas iyo xaaskiisu ay ka baxeen wadanka Masar oo ay u gudbeen wadanka Liibiya. Liibiya lala hadlay waxaa la dad fakada oo dambiilayaal noocaas wadanka dambi kasoo gala wadankiina kusoo maqan, soo haddaa aragtana la soo gudbiya. Iyadoo joornaalada wadanka Liibiya lagu wada sawiray oo meelaha iclaamkana laga soo gudbiyey baa nin supermarket leh baa wuxuu u tagay booliska. Wuxuu dhahay aniga waxaan leeyahay supermarket, ninkan iyo xaaskiisa hadda iclaamka meelaha aan ku arko iyo joornaalada waxay ii yimaadeen maalin hore, waxayna ka adeegteen dukaankayga alaab fara badan ay ka adeegteen. Wuxuuna i dhahay ninka waana dareemaya inaysan Liibiyaan ahayn oo waxay ku hadlaayeen lahjad Urduni ay ku hadlaayeen u dhahay. Marka wuxuu igu dhuhu yiri lambarkaagana sii si haddaan wax u baahano aan kuu soo wacno oo adeeg aan noogu keentid xaaskayga aa ugu keentid. Aniga waayahoon dhaho ku dhahay mar xitaa way soo waceen adeega u geeyay. Marka adeega u geeyayna waxaan arkay xaaska oo la hadlaysa ninkeeda. Marka waxaan is dhuhu yiri hadayba guriga wada joogaan maxay uga baahan yihiin in aan inta soo wacaan in alaabta u geeyo. Mideeda kalena wuxuu dhahay supermarketkayga gurigooda aad ugu dhawaa, iridda soo istaagaan waxay rabaan way qaadan kareen u dhahay. Marka taas anoo la yaaban baa waxaan arkuu dhahay haddana sawiradooda marka dadka meesha degan yihiin waa aqaanaa meeshaasay degan yihiin. Ninkii booliska soo raaceen gurigaa la keenay, labadoodiiba waa la soo qabtay. Markii la soo qabtay isla markiiba waa la soo tarxiilay. Waxaan lagu soo tarxiilay wadanka Urdun saastii loo keenay baaritaana lagu bilaabay. Waxaa la dhahay soo fariista la dhahay. Ninkii waa la qabtay oo Bilaal ahaa. Bilaal meel gooniya lagu wareysana, ayadana meel gooniya lagu wareysana. Ayada wax kasta oo la weydiiyo way inkartay. Laakiin ninkii Bilaal ahaa askarta waxay dhaheen hay adima hadlaysid mise anaga ka hadal siinayno. Waxay dhaheen haddaa isku malaynaysid inaan anaga wax wara aanan ka haynin meeshaas farahaaga ka helna warqadaas aad u soo qoraysa booliska isku xariifinaysa farahaaga laga helay. Haddaad diidaal dhahay inaa hadashad oo aakiratidna inta halkaa kaa soo laalaadino lugaha kor lagugu xiro aa lagu cadiba adaan hadlaysid Allah. Marka dambe wuxuu dhahay maya aniga aan waxba la cadibin anaa hadlaayo. Hay waay hadal. Wuxuu dhahay aniga wuxuu dhahay horta wuxuu dhahay qof oo micnaha iska wanaagsan dhaqamadiisii waxaas uu ka sheekeeyay qof saas oo wanaagsan ahaa uu dhahay. Laakiin xoogaa waxa iga naaqus aheed uu dhahay maadiyan ama dhaqaale ahaan xoogaa wuxuu dhahay u liitay. Kabacdi waxaan go'aansaday uu dhahay marka jaamacadda dhameeyay inaan shaqaysto. Waa dhameeyay uu dhahay waa shaqaysto dhahay anoo shaqo fiican haysto dhahay oo shaqaysanayo. Baa maalmaha ka mid ah cishaha markii lagu jiray baa waxaan aad u dhahay gurigeena meesha kor satuuxa. Aad u dhahay satuuxa guriga qaybta ugu sarreyso. Baa aad u dhahay anoo meeshaas aaday gurigeena iskaga soo naso jawi ku soo qaado. Baa waxaan arkuu dhahay gabar qaybta kale ee guriga kale oo nagu dhagan balkoonkiisa gabar taagan. Isla markii waa ka helay dhahay indhahayga isas qac ugu dhahday.
waa ka helo dhahay meesha isla eegnu dhahay maalintii dambe haddana waa kor dhahay kor markaan koro maalintii dambe gabadha waxaan arkaa in dhoola cadeynayso ee iyadana ila dhacsaneed sideed oo kaleeto kabacdi wuxuu dhahay warqad aan waxaan ku qoru dhahay aan warqadan u qoru dhahay dhagaxaan ku dudubo waa u tuuru dhahay marka u tuuro warqadan waxa uu helo ugu qoru dhahay inaan ka helay oo la dhacsanahay ayadana sidoo kale warqada iisoo tuurtay iyadana dhahda sidoo kaleeto anigana waa ka helay kabacdi wuxuu dhahay gabadha sidii wuxuu dhahay risaala isku dhaafsan jirnoo dhahay oo ah warqada saa u dira dhagaxa ugu duubaa maalin walbana meesha waxaa ii noqoto dharootiin ina kor koro guriga aado kabacdina waxaan bilaabay go'aansan u dhahay in xiriirkeena joogto inuu ah xiriir kaleeto aan yeelano laakiin gabadha waxay ii sheegtay dhahay in la qabo wiilina adeerkeeda uu qabo laakiin hadda say aniga iyo aragtay isaba la dhacsaneen ninkaasoo aysan rabin wejigaba aysan siin karin المهم anagoo wuxuu dhahay saa iskula sheekaysanayna baa qof kale oo daris guryaha ayaa yaqaan guryaha taqaanid xamraweyn oo kale hadaa degantahay waxa waa dabaqyada aad isugu dhow yihiin markay isku dhow yihiin dabaqan satuuxiisa iyo dabaqa satuuxiisa way isku dhagan yihiin hadana kan kale satuuxiisa kugu sii dhagan soo qofka satuuxaas taagan iyo adiga caadi waa u sheekaysan kartid mararka qaar xamraweyn ogaa aniga taa korna satuuxa kore baa la iskaga boodboodi jiray marka guryaha markay dabaqyo wada yihiin saas camal iskugu dhow yihiin marka gurigan maybe saas camal inuu ahaa qof kale uu dhahay oo daris ah baa asna satuuxa soo koray wuuna arkay uu dhahay markuuna arkayna wuxuu u sheegay uu dhahay gabadhan ninkeeda ayuu arrinta u sheegay uu dhahay markuu ninkeeda u sheegay ninkeeda gabadha wuu qabtay uu dhahay wuu dilo dhahay si xun waliba u dilo dhahay markuu dilay warqada iisoo qortay waliba way tustuu dhahay in si xun loo dilo ninkeeda hadirtaana aysan rabin almuhiim ninkii wuu imaado dhaa gurigeenu imaado wuxuuna dhahu dhaa hadaa ninkii hadaa xaaskayga wiilkiina ka cesho weysin waa dila almuhiim wuxuu ogaadu dhaa inaanaan weli cilaaqadii aanaan joojin oo aan sidii xiriir aan sii leenahay kabacdi wiilka wuxuu go'aansaday dhahay inuu gabadhan iska furo hadayba qof noocaas tahay oo soo ayada qabto nin kale ee ku qiyaamayso inuu iska furo oo go'aansado anigana maadaama aan ka hari waayo dhahay because wuxuu dhahay waa jeclaaday iyadana way jeclaatay kabacdi wuxuu dhahay markii saas ahayd uu dhahay gabadhi waa wada dhahay falayda u kireeyo dhahay falaydkii dajiyay falaydkii markaan dajiyo ilaa wuxuu dhahay bal waxa ay rabto si u go'aansato meesha inay ku noolaato oo ku beelo kabacdina waxaan iskula go'aansanoo dhahay 5 sano bi aniga weyneed uu dhahay gabadha kabacdi waxaan go'aansanoo dhahay inaan iskuursano waalidkii markaa u sheegay way iga diideen uu dhahay waxay ugu dhaheen uu yiri ma qof adiga hadda ninkugu qiyaam oo ninkeedii qiyaamaysay adiga daraada uga soo tagtay ma guursanaya la berito way fududahay adigan inay nin kale kugu qiyaamayso mana ka ogolaanayno kabacdina wuxuu dhahay reerkiga dhanaa jaro dhahay iyadana u tagay waxaan go'aansaday dhahay inaan wadanka dhanba uga tagno oo wadan kale aadno dambaari wuxuu dhahay marka balaayo waaye waa bii sheegtay gabadhan jaceelkeena iyo afaariin iyo dilalkan iyo dambiyada aad samayseen muxuu ahaayo dhahay iiga sheekay marka wuxuu dhahay wuxuu ka bilaabay ninkii hadda ugu dambeeyay dhahay Cabdi Jaliil ahaayo dhahay sababta ku dilna waxay ahayd dhahay maalin saaxiib ahayn dhahay ani asaga saaxiib ahayn dhahay marka wuxuu dhahay wuxuu nagu casuumay dhahay ciid miilaadigiisa ama dhalashadiisa maalinta dhalashadiisa nagu casuumay kabacdi wuxuu dhahay waa u tagnay dhahay marka u tagnay wuxuu igu dhuhu yiri orod marka ani saddexdan isla joogno dhahay wuxuu igu dhuhu yiri satuuxa kore baa waxaan ku soo iloobo shumacyo oo kayga lagu shidi lahaa marka wuxuu igu dhuhu yiri orod ii soo qaad marka maxaa asaga iyo xaaskayga aan waxa uga tago dhahay guriga aan waxa uga tago dhahay fadhiga marka wuxuu dhahay aniga kuma qanacsanayo dhahay inaan ka tago waa shaksanayo dhahay waa baxuu dhahay markaan korsi marayo isla markaa hadana waa soo kala firayo dhahay ana shumaciyo waxba soo doonay meesha saas kugu laabo waxaan arku dhahay soo rabo inuu gabaxaaskayga intuu soo qabto oo xoog ku qabto macnaha wax qaldan la sameeyo ayadana ay iska riixiso kabacdina waa soo orduu dhahay mindiyan qaatuu dhahay waan galgaliyo dhahay saasaa ku diloodnuu dhahay ninkaas kabacdina waan tirnuu dhahay wixii fara iyo wixii dhan waa nadiifnuu dhahay waana kasoo tagnay saasaa ku dilnuu dhahay ama wuxuu dhahay maamadii ugu horeysay ee sucaad ahayd 40 jirka ahayd wuxuu dhahay waxaan aragnuu dhahay soo daba kacna xilligaas uu dhahay anaga xaaladeena maadi ahaan dhaqaale ahaan way hooseysuu dhahay waxaana go'aansanuu dhahay maadaama reerkayga ay diideen inaan gabadhan guursado inaan isla baxsano oo aan wadan kale isla aadno halkaasna si aan aroos sharci saas ugu guursano marka wuxuu dhahay waxaan aragnuu dhahay iyadoo kasoo baxayso banki iyadoo kasoo baxayso baan soo daba kacnay waxaan iska dhignuu dhahay sidii oo ma arkino dad oo isqabaan oo xaafada ku cusub camal aan iskaga soo dhignuu dhahay markii aragtay albaabka intaa ku garaacnay ee aragtay inaan laba qofood oo isqaba aan nahay una sheegnay inaan dariskeeda cusub nahay way nagu faraxday way soo dhaweysay dhahay
markayna fariisisayna oo ay maagtay inay wax noo doonto ani waa istaagu dhahay mindi aan kalkaliyo dhahay way dhimatuu dhahay markay dhimatay guriga hadaa baarana waxaanba ka helnuu dhahay afartan geni miyaa lacag aad u yar unbaan guriga dhan ka helnuu yar iyo dahab yar oo markaas ay xirneed waxaana tirnuu dhahay wixii oo nalaga heli lahaa faroo dhan aan tirnuu dhahay kabacdina waa iska soo tagnay ama maamada ku xigta saasoo kaleeto waxaa iyadana lacag darteeda u dilnuu dhahay sidoo kaleeto gabadha wuxuu dhahay ayadana oo masaarida oo wuxuu dhahay gabadha yartaa wadatay ayadana dhowr waa raaqibi jirnuu dhahay macnaha waa ilaalin jiran dhowr jeer waxaa aragnuu dhahay iyadoo keligeed guriga galayso keligeed kasoo baxayso ayadii cunuqsile isla socsocdaan marka ayadana waxaa iskaga dhignuu dhahay inaan make up wareejinayno kaleeto make upkii markaa u galno waxba kamaysi helin laakiin albaabkii saastay u furta waa galnuu dhahay mindida ayadana ku durduruu dhahay waxa la wixii u yaalayna waa kasoo qaadanay ama cabdijaliilna saasa waa u dilnay dilalkii oo dhan iyo sababtii wixii dhan saasuu macnaha ku tafsiiriyey macnaha ama ku sheegay kabacdi maxkamadda la saaray maxkamadda markii la geeyey oo maxkamadii dambiyaashooda dhan way qirteen gabadha waxmaba qiranba isaga lay qirtay maxkamadii markii la geeyena wax alla wixii uu sheegay oo dhan wuu inkiray wuxuuna ku dhahay aniga waa la qasbay oo waa la idhandaday waa la idilay sidaas waa la iga sheegsiye maahane aniga ma iyo qofka dilaaga ah dilaagii wuu maqan yahay raadsada kabacdina maxkamadda waxaas waa ay ka diiday maadaama warqadii booliska uu qoray fariisa laga helay waxaana lagu xukumay dil toogashaa ayadana gabadhina waxaa lagu xukumay xabsi daa'im asaga marka isla markiiba dilka waa lagu fuliyey ama iyadana markii la xiray maalintii asaga la dilay maalintii ka dambeysay ayadana waxaa kusoo booday dhiig karaa ku dhuftay ilaa way oynaysay way isku darweysay markii dilka toogashada ay maqashay in lagu xukumisay u oynaysay ayada madaxaaba dhiig karaa ku dhufta ayadana meeshaasay ku dhimatay labadooda marka dadkii waxay u kala qaybsameen laba qaybood qayb dhahdo dadkan wax dambiya meesa lahayn askartaa qasabtay iyo dad dhaho way lahaayeen dambiilayaalay ahaayeen sidoo kaletana waxay dhaheen waxaa haddana shaki dhalisay maadaama wiilkan uu dhahay waxaaba isbaranuu dhahay gabadhan hal sano ka hor markii ninka cabdijaliil aan dilayna hal sano ka hor cabdijaliilna waxaa la dilay 5 sano kadib jariimooyinkii iyo dilalkii dadkaasoo dhan marka dadka saasay ku kala qaybsameen ayaga dambiilayaal ma ahayn waa la qasbay iyo ayagaa dambiilayaal ahaa saasay kusoo dhamaatay qisadooda labadaas qofood halkaasna ay labadoodiiba ku dhinteen qisadana maantana intaasaan kusoo gabagabeynayna intaa fiidiyan lamid ku kulmi doono waxaa idinku dhaafaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu